muqdisho ama ha qaraxdo ama ha hilaacdo ama ha olosho aniga maxaa iga galay iskama jiira waa iskama jiira وسلطان اسكاماتشيرا ويدله فيفا هوية إمي كمدحتويدا كو كفاحة كو باشالا كو حياة سيحدا كسو توسا فرماتشنا وعد كو تيرادان أناقو ما يعنو هدانو يعننا مفوغانو سلطان اسكاماتشيرا دي لاناقو مدحتويدا نساوغو راحيسانا انترنت كاد نغا جرتين با لا يابانايديني بيهانا وانو دي كجرنا waxaad ku fool dhaqataan baad weydaane biyashinaha ayaa iskale wala mudarada baad maqasheene waxba lagu soo hirtaaye maxaa idinka soo horeeyay iskama jiro from la yaqaano ninka kaliya farxad waqtiisa taalo waxaan idin leeyahay waxaanu taageersanahay madaxweynaha qaaradda geeska Afrika Muuse Biixi Cabdi Xidid Rooble radiyallahu anhu ilaahay ka raali ahaade qolooyinkan le waa markayagii meeshii mahagbad baa la qaadanaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أمة إسلامك meel kasta ay joogto dhamaan friendiskayga asxaabtayda ehelkayga meel kasta umada islaamka joogto waan salaamaya waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu weliga kelib ma soo duubin laakiin maanta waxa igu kalifay inaan kelib soo duubo wallahi dareenkayga iyo shucuurtayda ayaan waxaan ku leeyahay aan la qiyaasi karin horta aad iyo aad waxaan uga tacsiyadeynaa dhamaan wixii wax ku yeeloobay ummadii halka ku baabaaday eheladooda qaraabadooda iyo ummadda Soomaaliyeedba dadkii qaraxii maalintii dhoweyd uu ku soo gaaray xamar aad iyo aad baan ugu xunnahay haddaan nahay bulshooyinka reer Somaliland ina yaro xun baan doonaya halkan kala hadlo oo rabaayad xun oo edebta iyo akhlaaqda ka xumaatay oo maalin walba dadka islaamka dhibaato ku dhacdo ku weersada waa damiirka xagaad ka keentay baa la xumay bilaa damiirkii baa ku dhintay aqligan ku shaqeynaynin war isla yaabo isku xishood ummadda islaamku waa isku jir kaliya hadii mid dhaawac soo gaaray ka kalena waxay heedo uu soo gaaray ma garatay war isla yaab wuxuu joogaa magaalada Hargeysa waxaan ku ogaa xaafadda Goljanno islaan yar waxa dhashay miskiina hooyadii Canabal oran jiray rafaad bay ku soo korisay silic bay ku soo korisay kaligii bay ka dhashay agoon weeya ehel iyo qaraabo midna ma haysto hooyadii ma arkay video laga soo duubay maanta iyadoo ka murugaysan kana qeyroonaysa wiilkeedu wuxuu sameeyay waxay tiri wiilkaygu gacan kuma jiro farar kuma jiro waana iyo wax kasta waa kala qoostay waxa uu shaqaysanayna waa karaahidana wuxuu soo oogaya waa dhamaan ummadda Soomaaliland annagu raali kama nihin kuma faraxsanin waxa uu sameeyay karaahi iyo cuqubo ma shaqaysanayno cuqubadu iyo karaahidu dib ay kugu soo noqonaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم مع المسلمين تمام ساعتين كجوتان من مقالة مقدشو وحان كهضليا dhibaatada ka dhacday magaalada waxaan dareenka la qaybsanayaa maamo ama aabo ama adeer ama waalid ama wax weyn dhalinyarada runtii dareenkaas waa dareen qalbiga ku xaray oo waxa weeye runtii qof kasta oo haween magaalada ku sugan qalbigiisu ku xaray marka kan leeyahay ilaahay qalbiga inoo reebo maanta codkaygan waa iga dhambaal iyo iga caro waxaan la hadlayaa nin kale la Sultan Iskamachiire ee jooga magaalada Hargeysa waxaan u sheegay shacabka reer Muqdisho ninkaas haba yeelatay inaanu namatalin nama matalan ninkaas walaalayaal waan idin murugaysanay waan la dareensan dhibaatada halka waxa ka dhacayna ee maalin walba ka dhacaana wax lagu farxi karo oo qof islaamka ku farxi karo walaalayaal maaha السلام عليكم ودي سلام يا دمان رئيس مهلان يا مد الصومالية كلا إسلام قالكم قد عوانا السوا سلامك بعد ساكا وحندوني هنا محردين شاقا وحتى رويل كان سلطان يرى أو سوشيال ميديا لو ريتشنيو برشاد قارب وحنقول يا قارب في العالين نوع يكل الدونا كبحين السوا فضل نوصار سبسكرايب على خيارك وسوي حد قد قاعد فرح دراعك وسكوسو البرح صورتي في انا ورركي ودن بي هدا صور عي ايان كان دبغاني waxa kulay muuqaal khasiir la garashan halkan subscribe saar si inuu helo daawadayaal fara badan oo muuqaalada degdeg ah halkan ka baahinaa nala faranqeeyo sida halka ku aragto waxa weeyaan fanaanada caanka ee farxiya fiska oo dalxiis iyo dawaafil la soo mariyay magaaladii Berbera cadeeyahayd oo la geeyay inantii fiska ahayd oo tirka mayro wixii ku soo maray doomaha ciidamada waxa weeye xeebaha Soomaaliland ay leeyihiin mid kamid ah oo lagu dalxiis geeyay waa war qarsoon oo la soo xiray waadaga arkaya inantii farxiya fiska ahayd oo tir maxay iga galay nin geel leh waadaga arkaya inantii farxiya fiska ahayd oo dawaaf iyo dalxiis la soo mariyay dadkuba waa dadkaaga annaguna garabkaaga ayaanu nahay ay yiraahdeen reer Hargeysa oo dhan oo waxa weeyaan aad arkayso inay xataa doon kamid ah doomaha ciidamada qalabka sida ee xeebaha Soomaaliland ay ku dalxiis geynayaan oo waliba meelo fog laga soo celiyay sida halka ku aragto waa war degdeg ah oo u qaadan waa ah
suldaan iskamashiire oo mar kale muuqaal soo baahiyey ku digasho ah oo ka soo hadlay madaxtooyada somalilan gudaheeda. wiilkan yar ayaa ka shaqeeya xafiis ka mid ah xafiisyada waxa weeye somalilan, weliba waxa weye dowladda waxa weye ee madaxtooyada. waa waxa weeye suldaan iskamashiire oo muuqaalka aad arkayso ee ku digashada ah soo duubay. waxay ballan qaadeen reer muqdisho inay waxa weeyaan hadduu yimaado muqdisho waxa weye dhakhtarada waaweyn ee muqdisho mid ka mid a la dhigi doono. dhalinyaro reer hargeysa ah ayaa siyaabo xunxun oo murug leh uga falceliyey. waa qof lagu tilmaamay walaalkan suldaan iskamashiire inuu yahay qof aan deernahayn, balse dhacdooyinka la helay ayaa waxay ka mid yihiin maalmihii suuqa waaheen gubtay wixii dhacay. adiga arkay siduu u hadlay walaalkan suldaan iskamashiire. haddii si kale u eegno oo la yaab leh waxay noqonaysaa arrintani arrin bini-aadantinimada ka baxsan. dad walaalaha ah oo madhay, ma jeceshahay ehelkaaga, ma jeceshahay dadkaaga, ma jeceshahay deegaankaaga inay waxaan oo kale ka dhacaan? waa maya, calooshuba khusiin mayso. haddaba sidee bay kula tahay? waa su-aal ka dhana. sidee bay kula tahay dad walaalaha ah oo isku luuqadii isku diinba wadaagtaan oo waxa weeye halaagmay inaad ku faraxdo? sidee buu shirkaaga kuu siinaya? ma tihid qof weyn, qof yar oo ciyaalah, ma tihid qof la odhan lahaa caqligiisa ayaa ku filaan waaye, balse nin weyn oo gariya gafuur leh ayaa tahay oo intaa leeg. dhalinyaro badan oo burco, hargeysa, boorame, washaali, berbere ku sugan ayaa muuqaala soo duubay ballanna ku qaaday inay suldaan iskamashiire gacan kusoo dhigi doonaan. xataa qaar daafaha dunida ku kala sugan ayaa muuqaala ku baahiyey barahooda bulshada iyagoo aada uga xun, raali buuxdana ka bixiyey sidii uu inankaasi muuqaalka usoo duubay. muuqaalkaasi waa muuqaalkii hore, balse muuqaal kale ayuuba soo duubayba suldaan iskamashiire oo yihi magacaygu waa suldaan iskamashiire, xamar ha olasho maahaane khashuuf beesho. waa suldaan iskamashiire oo la yidhi waa la xidhay, balse waxaasi sidan muuqaal hele shalay xataa la leeyahay wuu kasoo tacsiiday oo dadyow kala duwane muuqaaladaas dhab ay moodayeen. anigii baahiye muuqaal run ah oo xaqiiqo ah inuu muuqaalkaasi aanu ahayn oo yahay muuqaal hore. muuqaalka kale horta muuqaalkii laysku haystay waaba muuqaalkii maalinkii daraadu soo duubay, maalinkii dhacdadu dhacday. wuxuu duubay muuqaalooyin kala duwan ilaa 400 oo muuqaal, 200 oo muuqaal. wuxuu ku farxay dhibaatooyin dad Soomaaliyeed kasoo gaadhay xamar meelo kala duwan. walaalkeen suldaan iskamashiire oo ku sugan madaxtooyada somalilan gudaheeda, weliba si rasmi ah halkaa waxa weye uga xamaalo uga shaqeeya, ayaa muuqaalkaa kale soo duubay isagoo yihi maxay iga garay xamar hadday olasho xataa khashuuf beeshe. sidee ayay dowladdu uga falcelin doontaa wiilkan ku gafaya ee dhagaha Soomaaliyeed wasakhiye? talow ma la odhan doonaa waa la xidhay? ma la odhan doonaa gaf ama raaligelin baa laga bixiyey? hooyadii ah hooyo weliba da-ah ayaa waxa weeye muuqaal soo dubtay ay oonayso iyadoo sheegtay inay kusoo korisay aqoonnimo. ugu dambeyn suldaan iskamashiire mar kale wuxuu lulay ama uu ka cadhaysay qalbiyo kale oo dad Soomaaliyeed oo murugooyinkooda. ta kale ee kasii la yaab kale waxay tahay dadka waxa weeyaan aanay waxbaba kaga noqon dadkooda. waxa kasii daran dad ka waran qof walaalkii maanta halkaa ku naf waayey markuu daawado muuqaalkaas uu suldaan iskamashiire leeyahay waa ku farxay ama maxay iga garay ha olasho muqdisho. suldaan iskamashiire wiilkaa yar ee dhalinyarada ah waxaa 90% loo badinayaa inay gacan kaga dhacdo dhalinyaro reer hargeysa ah oo ballan qaaday inay keeni doonaan baraha bulshada isagoo raaligelin toosa bixinaya. balse suldaan iskamashiire waxa la yidhi adkaysi hore lahow ama waxa weeye adkaysi dambe. waa adigaa arka, waa dhalinyaro badan oo reer hargeysa ah oo baadigoob ugu jira suldaan iskamashiire siday usoo heli lahaayeen, iyagoo weliba xataa muuqaala soo duubay dhalinyaradaasi ay aada uga murugeysan yihiin, raaligelin dhab ahna ay ka bixinayaan dhacdada xanuunka badan ee soobe ku dhacay ee dhalinyarada iyo waayeelka iyo maatadu halkaas ay ku haraagmeen. waxaa la helay muuqaalooyinka kale oo la yaab leh suldaan iskamashiire oo waxa weeyaan sidaan hore u baahinay sheegaya inuu aada uga xun yahay suuqii waaheena gubtay. weliba halkaas dad wax kumay noqon, balse maanta adiga arkay ku digashada iyo ku farxidda uu leeyahay waan ku farxay. muuqaal kalaaba soo dubita ugu la yaabka badan ayaa ahba
dadkii oo moodaya in la xidhay, dadkii oo moodaya inuu hooyadii maqlay, dadkii oo moodaya inuu dadkiisii maqlay, dadkii oo moodaya inuu ehelaadkiisii iyo dhalinyaradii kusoo gadooday maqlay oo uu ka toobad keeni doono oo uu raaligelin ka bixin doono ayaaba waa ninkii suldaan iskamashiir oo madaxtooyada gudaheeda mar labaad muuqaal kale oo kii ka waalan kasoo duubay. dhegtiya dhabankay isku kay dhegayay afkii baa shuuqda qabay. balse waxaa la sugi laayahay dhalinyaro reer Hargeysa ah oo ballanaya wacad ku maray raaligelin toosa isagoo bixinaya in baraha bulshada la keeni doono. waa la sugi laayahay dhacdadan la yaab kale. waa dhalinyaro reer Hargeysa ah maaha dhalinyaro reer Muqdisho ah. walaalkeen waxaan leenahay mar labaad raaligelin waa inaad bixisaa intaan lagu keenin baraha bulshada. kaa dabageeya sidaad halkaa ku aragto waa maalinta Soomaalida kulanka ee dalweynaha Ingiriiska. fanaaniin fara badan oo Soomaaliyeed oo ku kulmay xalay halkaas waxaa ka mid ahaa Cawaale Aadan. waxa weeye fanaaniin kala duwan oo aan halkan lagu soo koobi karin magacyadooda. qaar badan oo meelo fara badan oo caalamka uga soo safray. sidaad halkaa ku aragto waa Saamiye yar, waa gabar yar oo dhalinyaro oo ku nool magaalada Heshiga ayaa maalinkii toddobaad aan lahayn meel ay shaan iyo cirib dhigtay. gabadhan ayaa loo mareynayaa in la xaday ama la khafaashay ama afduub loo geystay. hooyadeed waxay sheegtay siday uga baxday guriga dib ugumay soo noqon. murugo iyo urku taallo ayay ugu tahay ayay tiri mana seexan 7 habeen iyo 7doodii maalmood. meel kasta waan ka baadi goobay, meel walba waan u qayla dhaan tirtay, meel walba waan ka baaday. dowladda ayaa ila garab gashay. waxay tiri maanan arag raaceedu meel ku dambeeyey. waa Saamiye yar oo aan lahayn meel ku dambeysay 7 maalin ee ugu dambeysay. balse hooyadeed oo sheegtay in ay 7 aanay seexan ayaa sheegtay in ay ka codsato ummadda Soomaaliyeed gabadhaas qofkii arka inuu bartaas kala soo xidhiidho oo uu ka waco. haddii aad aragto gabadhaas meel ay ku sugan tahay ama aad weshigeeda aqoonsato qabo oo hooyada dhashay waxa weeye Saamiye yar oo ku sugan gudaha magaalada Heshiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaali galbeed. wararka ayaa kale farqayn doona waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhamaad ila socon. ninkii suldaan iskamashiir ahaa oo dhalinyaro reer Hargeysa ay ballan qaadeen inay muuqaal ka soo duubi doonaan isagoo oo waxaan raali ka ahay oo aan raali gelin ka bixinayaa oo waxa weeye aan khalad ka galay uma Soomaaliyeed anigu maan oran. dhalinyaro reer Hargeysa ah sidan ku baahiyay baraha bulshada. bal sababta loo soo qaadan kara ayaa heeso aanan xuquuqdooda lahayn ayaa dul saaran. waa adiga arkaa suldaan iskamashiir oo muuqaal soo duubay isagoo kursiga ugu dambeeyay madaxtooyada gudaheeda ku sugan isaga raaxaysanaya oo aan waxaaba u sheegin. shalay ayaa la moodayay in la xidhay balse Hargeysa koonaheeda meelo ka mid oo beera ah ayaa fardafu lagu dheelay waxaaba uma sheedo maxay ga galay xamar haday ulasho. waa suldaan iskamashiir oo mar kale muuqaal ay dad badan ka cadhoon doonaan soo duubay balse halkee bay ku dambeyn doontaa. ku tiri ku teen maaha. waa muuqaalo dhab ah oo ay baahiyeen dhalinyaro reer Hargeysa ah iyagoo aad uga godooday, uga cadhaysan, uga xanaaqsan waxa uu sameeyey suldaan iskamashiir. ta kale warku taalada leh ayaa ah iyo murugta. hooyada dhashay oo da ayaa sheegtay inay ku soo korisay isagoo waxa weeyaan aqoonnimo ah oo sheegtay inay ka qaban lahayd haddii inankeeda arkayso balse aanu la shoogin oo uu ka fog yahay balse isku Hargeysa ay degan yihiin. dowladdu wax ma ka qaban doontaa intaan shacabku waxba ka qaban suldaan iskamashiir. waxaan ku leeyahay ka mid ahow xaqsoorti